halkan waxaan rabaa inaan baaq ugu diro bulshada Jubbaland gaar ahaan kuwa gobolka Gado walaal waxa lagu gorgortamahayo Axmedoobe iyo Deni iyo Farmaajo ku gorgortamahayaan waxa weeye waa adinka weey marka ha noqonina dad daawadayaal ah oo dhageysanaya ciyaarta iyo waxa ka socda Muqdisho dhageysanaya noqonina laakiin dad noqda shucuurtooda iyo waxay qabaan kana soo horjeeda Axmed Madoobe iyo dulmigiisa ka soo horjeeda noqda haddaad ugaas leedihiin haddaad wax garad leedihiin haddaad culumiye siyaasiyiin leedihiin waxa la rabaa arintan inaad ka dhiididaan oo aad diidaan Axmed Madoobe dhibka iyo qaska uu ku soo rabo inuu ku soo cesho gobolka aad ka hortagtaan waxaan ku baaqayaa bulshada gobolka Gado joogta dhalinyarada iyo culimada iyo wax garadkaba kulligood inay sameeyaan degmooyinka gobolka Gado sidii hore ahayd u dhici jirtaba inaad banaanbax uga soo horjeedaan Axmedoobe aad sameeyaan oo aad diidaan Axmedoobe inaad dhahdaan war Axmedoobe ma doonino naguna soo noqon maysid waxna isku darsan mayno even haddii Farmaajo heshiis la galo ayaka u taala meesha isla aadahayaan ayaka u taala haday Kismaayo ku heshiinayaan iyo haday meel kale ku heshiinayaan ka weey Axmedoobe hadduu Jubbaland doonayo Jubbaland Gado kaliya ma Jubbaland ha keeno intii Gado ma inteeda kala keeno Kismaayo dhinac u dhaafilay ay yahay 5 kilomitir 10 sano markaasuu leeyahay gadan rabaa in lagu soo daro waxa weeye shacabka gobolka Gado maanta ninna ka yeelina in dulmigi iyo dhibaatadii dib lin kugu soo cesho waxa ogtiin wali hadda aan hadlahayo Kenya inay dhibaato wali duqeymo iyo dhibaato ku hayso gobolka Gado cid ka hadlaysa midna ma jirto maanta ciidan dawladda Soomaaliyeed baa la geeyay way ku maasantaa dawladda arintaas waana ku taageereynaa maxay kula duwan yihiin ciidanka dawladda federaalka oo jooga Kismaayo iyo kuwa jooga gobolka Gado waxay kula duwan yihiin ma jirto laakiin Axmedoobe wuxuu rabaa inuu danta Kenya ka shaqeeyo doonaya وانا كحناهي إنه مدحوينه ما أنت لجوه هلا أما لجوه الدودبة إن عيدا قبل كجده على قصة قاضي أو كوا كسماية شو يكون هرشة بيلا شو يكون قل مدوك شو محاك كل دوين يكون قبل كجده شو وحاكم كل دونا هل كان بعد كوسو الدولي أو بعدين بلا حاول إلا هذا ماله كان يعيش حتى يبكوا يلا مركو حلا الدولد هذا الدولد وحتى يستهاي وقت جاء هاري سيدا مقالان شرب دتك إلا كسماية يشرب يبرع وأنت وده حيسه dulmiga shabaab ku hayo shacabka Soomaaliyeed dawladdu waxa ka qabato inta ku masquusho yaysan ku mashquulin Axmedoobe iyo shirarkiisa ku mashquulin taasa shacabka Soomaaliyeed waxna u taraysa waxna u qabanaysa in cadowgana jibinaysa laakiin ya maanta isku dayin madaxweynaha Soomaaliyeed isku dayin Axmedoobe yuusan niyadiisa maskaxdiisa gelin in gada dib jeebkiisa ugu soo noqoto haddii shacabka Jubbaland ama gaar ahaan kuwa gobolka Gado arintaasu ay yeelaan hadda waa dhibaato weyn weeye dulmigi iyo dhibaatadii ba dib ugu noqon doontaan laakiin marnaba ha yeelina maanta xor baad tihiin aad ka tihiin cadawga Kenya xor baad ka tihiin Axmedoobe iyo kooxdiisi xor baad ka tihiin dulmigi ku hayay marka dulmi ha ku noqonina intaas anu halkaan rabaa inaan maanta farintan gaarsiiyo bulshada gobolka Gado iyo gaar ahaan kuwa Jubbalandba inay ka didiyaan dhamaantood waana ku mahadsan yihiin shacabka Jubbaland meel ay joogaanba iyo shacabka Soomaaliyeed sida Axmedoobe iyo kooxdiisaba ay uga hortageen foodadiisi iyo doorashadiisi beenta oo asagoo isku caanush way uga hortageen waa ku mahadsan yihiin guul baan u rajeynayaa Soomaaliya meel ay joogta waana mahadsantiin